saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa barnaamijkeennii asbuuclaha ahaa ee aan hadba mowduuca uga hadli jirnay. isbuucan mowduucan uga hadlayno waxaa weeye ciwaankaas yaabkaydu ku noqday ee sidee ayaad cimrigaaga u dheerayn kartaa. waan huba isla markiiba boqolaal su-aalood ayaa isweydiinaysaan, ma qof ayaa cimrigiisa dheerayn kara? soo dadka oo dhan cimrigooda maysan dheeraysteen yaaba dhiman lahaa oo doonaya inuu dhinto. diinteennu soo nooma sheegin in qof walba leeyahay waqti uusan ka hormari karin kana dib mari karin. waayahay, mowduuceennu kuma saabsana in qofku cimrigiisa gacantiisa ku dheeraysanayo oo haddii uu rabo uu ku darsanayo 5 sano 10 sano ama intuu rabo. ee wuxuu ku saabsan yahay nidaam ghidaa'iya ama cunooyin haddii uu qofku si nidaamsan u cuno u sahlaysa qofka in uu waqti badan noolaado, sidoo kalena ka saacidaysa inuu miisaan badan iska rido, kana dheeraynaysa xanuunada la iskala nool yahay ee qofka horay u dili kara. inta aynan xalqada gudagelin saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa in haddii aad kanaalkayga hore ugu taxnaydeen aad like ii saartaan, haddii aad hadda ku cusub tihiinna in aad like iyo subscribe ii saartaan si ay idin soo gaaraan xalqadaha xiisaha leh ee isbuucii halkaan aan ku wada wadaagno. aqoon-yahan weyn oo talyaani amerikaan ah oo magaciisa la yiraahdo Walter Longo, kuna takhasusay cilmiga biochemistry-ga, ahna madaxa macadka lagu daraaseeyo cilmiga gabowga oo ka tirsan jaamacadda South California, ayaa wuxuu 12 sano cilmi baaris ku sameynayay dadka da'da ah ee Ilaahay cimriga dheer siiyay ee dunida daafaheeda ku nool. danta uu ka lahaa cilmi baaristan waxay ahayd bal in uu ogaado waxa ay ka siman yihiin ee ay cunaan dadka cimriga dheer ee dunida daafaheeda ku kala nool, waxaas oo ka ilaaliyay xanuunada faraha badan ee gabowga dariska la ah sida kansarka iyo xanuunada wadnaha ku dhaca. aqoon-yahankan markii uu sameeyay tajribooyinkaas iyo cilmi baarisyadaas wuxuu qoray buug uu bixiyay The Longevity Diet ama cunooyinka cimriga dheereeya. buuggan ayaa aqoon-yahanku wuxuu si weyn ugu faahfaahiyay doorka ay nooca cunno ee qofku cunayo ku leedahay cimri dheeraanta, caafimaadka iyo ka fogaanshaha xanuunada gabowga kusoo gabada. aqoon-yahankan ayaa wuxuu sheegay in cunooyinka cimriga dheereeya ay ka kooban yihiin koox cunno ah oo si nidaamsan oo jadwalaysan qofku u cunayo. nidaamkan oo aan mar dhow faahfaahin doono ayaa wuxuu sheegay tiktoorku in qofkii raba inuu si sax u raaco uu badsado qudaarta iyo waxyaalaha kale ee aan sheegi doono, kana fogaado ama iska yareeyo cunidda hilibka iyo digaaga. waraysi dheer oo lala yeeshay tiktor Walter Longo ayaa wuxuu ku sheegay in aysan jirin markii laga reebo jiinaadka dadka sabab kale oo ka xoog weyn cunnada uu qofku cunayo oo xadidi karta in qofku uu 50 sano jir ku dhimanayo iyo in uu gaarayo ilaa iyo 100 sano iyo dheeraad. tusaale ahaan ayuu leeyahay tiktorku, xanuunka sonkorta noociisa labaad waa mid ka mid ah xanuunada ugu badan ee hadda dunida daafaheeda loo dhinto. waxyaalaha ugu waaweyn ee sababa waxaa ka mid ah nidaamka ay dadku waayadan dambe wax u cunaan. haddana waxaan sheegi doonaa cunooyinka cimriga dheereeya. cunooyinkan ayaa waxay u badnaan doonaan nidaam cuneedka loo yaqaano vegetarianism-ka iyo cunooyinka badda. cunnada koowaad, khudrawaadka iyo fawaakihda. taxliil ay samaysay majalada British Medical Association waxay ku sheegtay in isticmaalka badan ee khudaarta iyo fawaakihda ay si weyn hoos ugu dhigaan dhimashada, gaar ahaan dhimashada ka dhalata xanuunada wadnaha ku dhaca. majalladan ayaa waxay kula talisay dadka in qofku ay fiican tahay in uu maalinkii ilaa 5 jeer uu cuno khudaarta iyo fawaakihda, gaar ahaan khudaarta caleenta leh qaybaheeda kala duwan, iyo sidoo kale in uu badsado cunooyinka baalka leh kuwaas oo u wanaagsan dheefshiidka iyo xiidmahaba. cunnada labaad, qaybo badan oo ka mid ah cunooyinkan Soomaalidu ma isticmaasho oo waxaan u waayay magacyo af Soomaaliya, marka waxaan isku dayayaa inaan magacyo qalaad ku soo gudbiyo, laakiin aan idin soo raaciyo sawiradooda si aad u aqoonsataan ilana wadaagtaan haddii aad magacyadooda af Soomaali ku garanaysaan idinku. cunnada labaad waxaa ka mid ah fasuuliyada, cadasta, green beeda, chickpeada oo luqadda carabigana lagu yiraahdo xumusta. daraasad la faafiyay sanadkii 2013 oo lagu sameeyay ilaa iyo 73,000 oo qof oo rag iyo dumar isugu jira ayaa waxaa lagu sheegay daraasadaas in cunidda khudaarta iyo fawaakihda ay si weyn hoos ugu dhigaan khatarta dhimashada. cunooyinka saddexaad waa cunooyinka loo yaqaano mukasaraadka sida lowska iyo waxyaalaha la midka ah.
cunooyinkan ayaa waxay hodan ku yihiin fitamiinaadka iyo dufan aan wax dhib ah lahayn. sidoo kale waxay leeyihiin faa'iidooyin kale oo aad u fara badan. daraasad la sameeyey isla sanadkii 2013 laguna dabagalay 7,000 oo qof oo rag iyo dumar isugu jira cunooyinkii ay cunayeen 4 sano ee u dambeysay, ayaa waxay sheegtay daraasadu in kuwoodii asbuucii ilaa iyo 3 jeer cuni jiray cunooyinka sida lowska iyo waxyaalaha la midka ah ay ka dhimasho yaraadeen 39% kuwoodii aan cuni jirin cunooyinkaas. cunooyinka afaraad waa cunooyinka badda sida noocyada kala duwan ee kalluunka iyo waxyaalaha la midka ah, bishardi in qofka uusan ka badsan 2 ilaa 3 jeer inta uu dabaqayo nidaamkan ghidaa'iga ah ama nidaam cuneedkan. 5. shaaha cagaaran. shaaha cagaaran waxaa la sheegaa inuu xanuuno badan ka hortag u yahay, sida xanuunada wadnaha ku dhaca, kansarka, sonkorta nooceeda 2, cayilka iyo xanuuno kaleba. daraasad la sameeyey sanadkii 2009 oo muddo 6 sano ah la waday, laguna sameeyey dad da ah oo u dhashay waddanka Japan, ayaa waxaa lagu sheegay daraasadan in kuwoodii ilaa iyo 7 koob oo shaaha cagaaran ah cabi jiray maalinkii ay aad u yareed inay u dhintaan xanuunadaas aan kor kusoo sheegnay sida kansarka, wadna xanuunka, sonkorta qaybteeda 2 iyo cayilka. soon goosgoos ah ayaa ka mid ah waxyaalaha cimriga dheereeya ayuu leeyahay tiktoorkan. sida uu sheegay tiktoorkan, waxa wanaagsan ayuu yidhi markii aad raacaysid nidaamkan cunno ama nidaamkan ghidaa'iga ah in aad 12 saac wax cuntid, 12 saac oo kalena aad ka soomanaatid cunnada. yacni wuxuu ku leeyahay waa in aadan 24 saacba aadan afka iyo gacanta aadan isku sii wadin oo aadan wax cunin, ee waa inaad marmar dheefshiidka aad nasisaa oo 12 saacna aad wax cuntaa, 12 saac oo kale ee soo harayna aadan wax badan oo culus aadan cunin. sidoo kale tiktoorkan wuxuu aad ugu celcelinayaa wuxuu leeyahay qofkii raba inuu nidaamkan ghidaa'iga ah ama nidaam cuneedkan jadwalaysan dabaqo waa inuu iska daayo oo uu faraha ka qaado hilibka iyo digaaga, ama ugu yaraan haddii uusan awoodin inuu faraha ka qaado hilibka xoolaha iyo digaaga waa in uu aad u yareeyo. dabcan waxaan filayaa annagu Soomaali ayaa nahay oo hilibku wuxuu noogu jiraa meel weyn oo faraha kama qaadi karno, ma aqaan sida aan u dabaqi karno nidaam cuneedkan. saaxiibayaal, xalqadeeni asbuucan intaas ayay ku eg tahay. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad si xushmad iyo qadari ku jirto idinkaga codsanayaa haddii aad kanaalkayga hore ugu taxanaydeen in aad like ii saartaan, haddii aad hadda ku cusub tihiinna in aad like iyo subscribe ii saartaan si ay kuu soo gaaraan xalqadaha xiisaha leh ee asbuuc walba aan halkan kusoo gudbino. waa noo asbuuca dambe iyo nooli kulantee. guuleysta saaxiibayaal.